Ambassador Hussein Umar Kawali safiirka Djibouti u fadhiya Somaliland ayaa dhambaal hambaliyo bogaadina u diray guud ahaan shacabweynaha dalkaasi Djibouti sidoo kale safiirku waxa uu hambaliyay sanad guurada 4aad ee ka soo wareegtay aasaaska xisbiga talada dalka haya RBB oo maalintii shalay ahayd lagu xusay dalka Djibouti isagoo faahfaahiyay isla markaasina sharaxaad dheer ka bixiyay taariikhda qotada dheer ee xisbi xaakimka talada dalka haya RBB waxaana hadaladiisa kamid ahaa iyo shacabka reer Djibouti anigoo xaggan uga diraya hambalyo ballaalan meeshay doonaan badaafaha adduunka meeshay doonaan baa ka joogaan shicib weynaha jamhuuriyadda Djibouti oo dhan waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan hambalyo inaan u dilo hambalyo xusbiga RBB oo xusaya 40 jirkiisii xusbiga RBB waa xusbi xaakimka waddanka Djibouti weeyaan waa xusbiga من maalintii aan gobonimada la qaatay waxa de gobonimada Djibouti dhalisay elbaay baa dhalisay elbaay waxa kala wareegay bacda xorriyadii waxa kala wareegay RBB waxay abuurantay 4 Maars 1979 waxa lagu abuuray magaalada midnimo la yiraahdo ee Dikhil oo gobolka Dikhil maanta gobola waxa weeyaan magaaladaasi waa magaalada midnimada waa magaalo ay ku wada nool yihiin qoomiyadaha reer Djibouti oo dhan laga helo ay ku wada nool yihiin ay ku wada dhaqan yihiin oo dadku isdhex galaan weeyaan xusbiga RBB waxa loo sameeyay si looga gudbo marxaladihii waddanka soo food saaray calankii dabadeed calanku markaa wuxuu jiray 2 sanadood buu jiray 2 sanadood kadib madaxweynihii waddanka aabihii qaranka Allah u naxariistay Alxaaji Xasan Guuleed Abtidool iyo Barkhad Gurad Xamaduun iyo koomiteegoogii la shaqeynayay ee markaa elbaaydaha ayaa gartay inay ku dabaqaan xusbiga RBB ilaa maanta RBB hore marka ay waddanka gaarsiisay wad arkaysiin madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti imika ah mudan Ismaaciil Umar Geelana waa ragiibu kamid yahay u soo dhabar adeegay ee jaranjarooyinka badan ay soo maray xusbigaasi inta oo dhanba u dhabar adeegayay ee maanta xagga soo gaarsiiyay waxa kale ah madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Umar Geelana hambalyo baan kale ilaahay ha ku garab galo waayo tacabkaagii ma khasaarin hore markii aad noo jahaysay waan ku liibaanay waddankii hore mar buu gaaray dhabar adeegaagana waa to aan ka qaadanayno tilmaam iyo leete waxgarad wax weyn bad noo kordhisay xusbiga RBB-na maanta 40 jirkiisii hadduu xuso anigu xildhibaan baan ka ahaa xusbiga RBB waxaan galay baarlamaanka 97 baan galay anigoo dhalinyar in kasto oo markii horeba xusbiga aan ku barbaaray oo elbaayda xitaa dhalinyartii caruurteedii la shaqeynayay ahaa markii dambana RBB baan u shaqeynayay unuga xusbiga kaartisiis ayaan koomiteega dhalinta kaartisiis baan ku jiray Cabdiqani Xuseen Abukar Cabdiqani Baylood telefishinka caalamiga ee Bulsha TV Hargeysa